fadhi ay maanta yeesheen xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland oo shir gudoominayay gudoomiyaha golahaasi Salebaan Maxamuud Aadan ayaa mudanayaashii fadhigaasi ka soo xaadiray oo tiradoodu ahayd 51 mudane oo kamid ah 82 xildhibaan oo ka kooban yahay golahaasi waxay ku ansixiyeen xeerka gufsiga kaasi oo hore u soo ansixiyeen golaha wakiilada Soomaaliland iyadoo wax ka bedel iyo kaabid ay ku sameeyeen xeerkaasi waxaana golaha ka waraqiyay intii aan la ansixin xeerkaasi wax ka bedelka lagu sameeyay xogayaha guud ee golahaasi Abdinaasir Beegsi waxa kale oo mudanayaal ku jira qodobada la isla eegay wax laga beddelka lagu sameeyay xeerarka ciqaabta ku jirta xeerka oo aad u fara badnay waxa lagu eegay inaan ciqaabtu ka badan ciqaabta ay qaadi karo qofka bini'aadmiga xariga marka la saaro taasoo ah 5 sano ilaa 20 sano la gaarsiiyay markii hore waxa ciqaabaha ku jira inay ka badnayd 28 sano 50 sano ay meelaha qaar ku jiray 28 sano iyo 30 sano balse waxa lagu soo ururiyay xeerkan inuu noqdo 5 sano ilaa 20 sano 20 sano aanu ka badnaan xariga qofka bini'aadmiga u galay waxa kale oo ka mid ah mudanayaal qodobada la eegay goorta la bilaabayo dacwadda kufsiga weerarada keenay ama qodobada uu muranka badan shariica islaamku ka taagnaa qorahana doodiisa inta badan lagu soo darsaday guddiga iyo culimadu waxay isla garteen in muddada lagu bilaabi karo dacwad kufsi inay tahay 48 saacadood gudahood haddii aanay jirin sabab macquul ah oo dib u dhac sameysay 48 saacadood lagu sameeyo waayo waxa la isla eegay in dacwadaha ugu badan ay yihiin gabadh 6 bilood ama 7 bilood xaamil ah ikiis dacwada loo furo la yiraahdo kufsi taasina waxay noqon weyday shariica islaam goormuu dhacay kufsigaasi masiina ama kufsiba waxa loo badiyay inuu sinay kadibna waxa la gudagalay codub qaadida xeerkaasi iyadoo ku dhawaaqay natiijada gudoomiyaha golahaasi Salebaan Maxamuud Aadan waxa ogolaaday 35 baa ogolaaday sidoo kale xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland waxay ansixiyeen xeerka waxbarashada iyadoo isagana wax ka bedel iyo kaabid ku sameeyeen iyadoo hore u soo ansixiyay xeerkaasi golaha wakiilada Soomaaliland Mukhtar Ismaaciil Ali telefishinka Universal Hargeysa